waxaa magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo isla markaasina lagu soo dhaweynayo suldaanka cusub ee Suldaan Axmed Xasan Jaamac Abokor oo 28 bishii Abriil ee aynu ka soo gudubnay lagu caleema saaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadan ay guud ahaanba ka soo qayb galeen cuqaasha, salaadiinta, garaadada, waxgaradka iyo siyaasiyiinta dhammaan bajaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Kenya amaba East Africa ayaa ahayd mid lagaga sheekeeyay taariikhda facaweyn ee ay reer Suldaan Axmed Xasan Jaamac Abokor iyo qoyskooda ay ku lahaayeen saladaladaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan beesha Ibrahim Sheekh Isxaaq Ababa Sanbuur. ugu horeyna odayaasha, salaadiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland ee goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. waxa halkan shir jiraayid ku qabanaya odayaal dhaqameedka, salaadiinta, cuqaasha, garaadada ka soo jeeda dhammaan deegaanada ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. shirka jiraayid oo looga dan leeyahay in lagu taageero ama sabood lagu siiyo suldaan ku soo kordhay odayaal dhaqameedka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer, Suldaan Axmed Xasan Jaamac Abokor oo 28 bishii Afraad ee aynu soo dhaafnay ee 2016 caleema saarkiisii caanshubkiisu ka dhacay caasimadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco. suldaankaas haddii aan ka taabto shakhsiyan yani aqoonta aan u leeyahay suldaanka Suldaan Axmed Xasan Jaamac Abokor wuxuu ku dhashay magaalada Qoryaale taariikhdu markii ay ahayd 1963 waa suldaan cilmi aqooneed oo diiniya iyo suldaan yani maadiba wata. waa suldaan ka soo jeeda qoys talinayay ama qoyska Ibrahim Sheekh Isxaaq ama beelweynta loo yaqaan Sanbuur oo suldaanka doortay. waa suldaan yani talada guriga uu ka soo jeedo looga hayay muddo gaaraysa 150 sanadood. halkan waxa aan ka hambalyeeynaa Suldaan Axmed Xasan Jaamac Abokor. waxaan leeyahay suldaankii allihiisa udgoonu nabigii ashhaada qiraaya ee salaadaha oga akhriyaya quraanka asal raaca islaamka horta ilaahay ka yeelo. waa suldaan ka soo jeeda wax badanna ku jiray isaga iyo aabihii awowgii dhammaan yani reer Xasan Jaamac oo dhan waxay ka soo jeedeen beelaha day u taliya Somaliland. imika waxaan xabalay la safaan xabalay la suldaanka Suldaan Xasan Jaamac Abokor. waxaan leenahay marka koobaad suldaan arinta lagu caleema saaray waanu kuugu hambalyeynaa. marka labaadna waa kuugu ducaynaynaa xilka lagu saaray in Ilaahay kugu asturo ayaanu kuugu ducaynaynaa. waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb qaato munaasabadan lagu tahniyadeynayo Suldaan Axmed Xasan Jaamac. haddii suldaan la doorto laba mas'alo baa laga hadlaayo waa dardaaran iyo duco labadaas baa lagu kaalmeeya. ducada waa ducaysano in Ilaahay xilka ku asturo oo uu dadkiisa bidnimadeeda iyo wada jirkooda iyo wanaagooda uu ka shaqeeyo ilaahayna u fududeeyo way ugu ducaynayaan. Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi.